Nin ayaa dukaan qudaarta lagu iibiyo soo galay, kadibna ninkii dukaanka iibinaya ayuu weydiiyey, waa imise kiiladii mooska ah? Ninkii dukaanka lahaa wuxuu dhahay, mooska waa 600 oo liiro, tufaaxana waa 500 oo liiro. Dabadeed waxaa dukaanka soo gashay gabar uu yaqaanay ninka dukaanka lahaa, kadibna gabadhii ayaa waxay weydiisay, waa meeqa kiiladii mooska ah? Wuxuuna ku jawaabay, mooska waa 200 oo liiro, tufaaxana waa 50 liiro. Hadda si isku mid uguma jawaabin ogow. Waxaa carooday ama xanaaqay ninkii doonaya inuu wax iibsado. Indhihii ayaa gaduutay, isagoo isle waa lagu qayaamay ee ninkan iskala hadal, ayaa ninkii dukaanka lahaa hoosta ka qanjaruuftay, isagoo la aamus anigaa sababta kuu sheegaya. Kadib gabadhii ayaa qaadatay 1 kiilo oo moos ah iyo 1 kiilo oo tufaax ah, waxayna dhiibtay wadar ahaan 250 liiro. Waa ay baxday iyadoo faraxsan oo leh Alle ayaa mahad leh, carruurtayda wax ay cunaan ayay heleen, Alle ayaa mahad leh. Markii ay baxday kadib, ninkii dukaanka lahaa ayaa ninkii kale ee wax ka iibsanaya ku yidhi, walaalku qiyaami maayo, laakiin gabadhani waxay haysataa 4 carruur oo agoon ah, waana maskiin, cid kaloo ilmaha la korisa ama ku biisha ma qabto. Waa gabar aad u xishood badan, mar waliba oo aan isdhaho caawi way iga diidaa. In badan ayaan ka fikiray sidii aan u caawin lahaa, waxaana go'aansaday inaan qiimo dhimis ballaaran u sameeyo mar walba iyadoo aan ogeyn, anigoo uga jeeda inay dareento in aysan dad dhan u baahanin. Waxaana jecelahay inaan Alle la ganacsado. Gabadhan isbuuc walba hal mar ayay ii timaadaa. Alle ayaan ku dhaartaye, maalinta ay wax iga iibsato, waxaa isoo gala faa'iido fara badan, waxaana la iga arsaaqaa meel aanan garanayn. Waxa ooyay ninkii rabay inuu dukaanka wax ka iibsado, waxa uuna dhunkaday madaxa ninkii dukaanka lahaa, isagoo yaqiinsaday xigmadda ku jirta garab istaagga loo sameeyo kuwa ugu nugul dadka sida agoonta iyo masaakiinta. Caawinta dadka waxay leedahay macaan, waxaana ogaan kara qofkii tijaabiyey oo keliya. Haddii aad dadka saacidaysid, waxaa kuu furmaya hubaal faraj khayr leh. Sadaqaduna sida uu nabigeena sallallahu calayhi wasallam ina faray, waa daawo waxtar leh ee aynu ku dadaalno. Waa walaalkiin Axmed oo idin leh, sheekadani waxay ka turjumaysaa cashar muhiim ah oo ay tahay inaan ka wada faa'iidaysano. Waxaana laga yaabaa saaxiibada kale inay wax ku qaataan ee inoo sheer gareeya.